madaxdii qaranka oo halkan ku dhan uu hogaaminayay madaxweynuhu waa la sheegay sababihii iyo beentii laga abuuray iyo taariikh nololeedkiisii oo ay xamar oo dhimi garanayso inuu xaafidul quraan ahaa masaajidada ugu waaweynna ka tukinayay isagoo xaafidul quraanna waa la garanayaa waxaa lagu sheegayay iyo wuxuu dhowna u helmaaha maantana afar kala nooc oo sunna baa cusbitaalkii ka helay dhakhaatiirtii baadhay cadawadda intaa leegina sidaa la sheegay waa yaan la isdhex marin hawshan ilaa xamar way ka socotay maalin walbana cidda ay muraad u leeyihiin bay leynayeen laakiin kooxda hore ee dhallinyarada magacooda lahayd ayuunbaa lagu sheegi jireeye waxani waa waxay dhaqan u leeyihin oo wadeen ummadda meesha ku dhimatayba waxa lagu dilay ama ganacsi ama siyaasad ama hawlo waxaan ku darayaa ninkani wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee raggaa toorjarka lagu hayey ee loo xidhay ninkaa ee laga been abuuraya rag reer Soomaaliland la dilay maanta leeyihiin ninkii ugu horreeyey soo booqday buu ahaa ninkii nabarada ku yaala soo arkay buu ahaa intaasaa laga iyo ninkii marxuumka Cabdinaasirna xidhiir gaar ah bay lahaayeen raadkiisu waa raad la garanayo wax la dafiri karo iyo wax lagu sheegi karo midna maaha labada nin haraa iga taagina waa walaaladii labada inay madaxweynaha hor taagina waa caruurtiisii kaasi shalay buu xamarka iyo meed kula socday kanina halkan uu sii joogay waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada xusbiyada mucaaradka baarlamaanada sida muggalay ay u soo sharfeen iyagaana aanu hawsha u daba fadhinaa oo ka jawaabaya haddii aanu nahay qoyska waana mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah